هاي سميو ايور fiican wallahi maanta iskuulka madax waaye dadkii waa aqaano dhan ma joogaan علي محمد uma jeedin maanta inta ka baxeen uma jeediyo cali kool iskuula jirnay markii ugu dambeysana waxay dhahay dabaq ilaa camal isku jooga keligee laakiin maxamedna ma aqaan kaas googo waa meelihiis iska jooga ninkaas kaligiis bilaash uma jooga cabtooy waaye balwadiisa weli sii wataa camal meeshuu iska fadhiyaa weli wixii sii wataa may balno cali iga qaada aniga mar dambe balwad xataa iska daa wax agtiis u dhow inuu mareenin maxaa ka qaldan adiga adi maxaa la xanaaqay ninkan saacadan wixiisu meesha ku caweeya hadaa rurubtid ana waa huba inuu meesha wax ku caweeya cawada ku soo nabixin anin kulli cali waa isku huwa waana aadayna dabaqaas wax weyn maahan maxamedna meelaha ka sii raadinayna soo bax caawa haweenkii oo ay mar kale dhici doonto islii waa magaalo weyn waan jeclahay cuntada kenyaanka laakiin caawa waxaa u baahanahay waxaas wax ka dugan wadabaqan foolxumo badana saaxiibo war ciyaarta naga daa sabax saaxiibkeena raadinay dabaqan disana haddana cabsi waa maaniga dirsaan xaafadda aadana iska noqon aniga jacaysan fiir ada xaasimada naga daaya saaxiibkan inta raadin inta la fikira ama kullu tilaaba adiga oo kaashkii qaba saaxiibkeena raadinayna qof walba luuqa ka baxo ani simo israacana cad luuqa iska bax ha sax waa soo baxa aniga cabsana iska baxay niga يا قفا داي أكثر من 100 من سنة حقول عادين يسار ما حد قبل يسار ما نمر بعيالك وجدنا لبدينا
ogaada bulshada waxay nooga baahan tahay inaan qabanno haddaan nahay booliiska magaalada annaga wax walba ay dhabarkeena u saaran yahay mas-uuliyaddaan qaadan waa inaan gudannaa waaya laakiin mar walbana waa inaan ogaanaa meeshaan fiiriya dhallinyaradan meeshaan ku yaala waa dhallinyaradii maqnaa ee communitiga annaga inoo dirsadeen waxaana looga baahan yahay inaan ka warhayn feelashaan meeshaan ku qoran waa wixii annaga naloo shaqaysaa 3 maalmoodaa la marayaa intii dhallinyaradan ay maqan yihiin yaa mas-uuliyaddaas qaadaya yaa qaadaya mas-uuliyaddaas waa inaad haddeer hool gashay hooshaan meeshaan ku qoran waa inaad ka warhaysaa ninkan meeshaan muxuu noo keenay Allah, dia maxaa samaynaysaa soo baxno carar dalka waa kana carar tashka qabso carar hala carar يسا هوشان ku guda jirnaa meel walbana waan ka raadinay isbitaalkee okay sir maxaa dhacay
gabdhihii dadkii la waayay hal gabaraa laga helaa la dhahay isbitaalkaas sida joogtaa markay shaqalayso liftow sababtana enota waxaan raadinaynay gabar Sumaya Cabdi lahaay Sumaya Cabdi Sumaya Cabdi gabarta saaki ma dimi awla axsan ma hadli karna hadalaya ma ka xumaay laakiin xiligan waxay ku jirtaa koomo maalin karto ilaa inay qasoo karnaa daafi waxay noqon kartaa hal bil waxay noqon kartaa hal bil wixii laga qoryo noqon kartaa I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize, cause it's gonna be biting. Okay, adaa ku socnaa waxaan rabnaa inaan wax ku weydiino hooyada hooyadan joogto abaagan aabahay ma joogo guriga kula degay naga hadal ciyo guriga kula degay hadal gurigeeda ma shaqaysaa ma shaqeeya cadaan waxaad lacag geedkii nur waalidka aysa guriga saan way waalidka lacagta ku soo dirmeen dhalinyarada saaxiibadaada ay ka mid tahay Sumaya iyo Yaasiin iyo Cali iyo arnana wax ka weydiin goorma ku dambeysay isbuuc hore ugu dambeysay maalinkee maalin Isniin meeqa saac ku dambeysay waxay ugu dambeysay 12 maalmood okay xagee ku kulanteen tawa qabyada dabaqee
سيدرمي في عنها لكن ما أخانا حلوة دائما إجمال دارتانك وكنينياشو لكن أكثر أنت كمان waa suuxsanayd gabaraa jidka kaa soo qaaday isbitaalkaana ku keentay لكن قبل في عنها ما شاء الله كنت معاوي هو قبرتاس ساكي بعد عملها daa culus u arkin laba qof oo askari ah banaanka ku taagan waxay rabaan inay xoogaa su'aalayaal yar ku weydiiyaan اوكي حاضر hey diyaar waa geli kartiin laakiin soo dhaqsada daaweyna السلام عليكم وعليكم السلام اسمها هذيك مياه اوكي waxaan ku door su'aalood okay waxaan labada askari loo xisaaray kiiskaaga ma xasuustaa waxyaalaha kugu dhacay si fiican oo xasuusta wax ma ka xasuustaa si fiican okay waxyaalaha san rabaa inaan wax kaa weydiiyo Hi, Sumayo. waa ka xumaya baa wax kugu dhacay عليكم السلام حكومة سيدة مدام انفورميشن عفماذا كل جنة هي فريسة باي Thank you sir. waa mahadsantihiin laakiin maalmo badan aan ka joognaa maalinta arrintan aan bilownay ilaa iyo haddana wax caddeen ah oo aan gacanta kusoo dhigna male maalin kastaahayna qof kaloo cusub ayaa maqan raalina ku mudan waxaanan la hubin qofkii in la dilay in kale markii laga reebo qofkaad sheegayseen xasuusnaada waxaana looga baahan yahay hawsha annagana loo dirsaday inaan ka soo baxno maxaa aqbaalood ii haysaa hawsha gabagabay noo maraysaa waan ku dhownahay inaan soo qabano waxaanu cadeymaa arkiisana taliya saan ka soo qabanay cadowga aan ka soo geerana waayahay shaqo wanaagsan laakiin aniga tayda markaan u eego waxaan rabay hawshan inay mar hore dhamaato waqti badan baa galay marka waxay danta igu kalifaysaa haddaadan idinka dhamayn karin inaan laba askari kale aan u dirsado arrintan nagaraan noqosaa 24 saac gudahooda ina sii anagaa cadowga hadda gacanta kusoo dhigi doona maalin waliba ayay waxaad codsanaysaan waqti dheeraada xalayaa ugu dambaysay ruux baa gaarin waanu la soconaa taliya xalayto kiiskii dhacaye waa lasoo report gareeyey warqadayna ku qoran tahay waad ka akhrisan kartaa meesha okay waayahay waxaan idinkugu dirayaa haddeer 24 saac waa 24 saac oo keliya waqti dheeraad idima hayo haddii hawshan aad kusoo guulaysataan xidigaha maanta idin saara oo idin kordhaya haddaad ku guulaysataan intaasan taageeraysaa thank you sir waana mahadsantaa 24 saac gudahood aana siisay waan kusoo qabanayna cadowga waa bixi kartaan waa mahadsantihiin shaqo wacan meeshaan usoo dhamaanaa meeshaa dhammaan ha inta waa okay now
واي ما شاء الله ملنا نجي نلا هلا وكابتن صالح هذا عسكري wuxuu ku dhintay meesha ogeedeen tuugada ku jirtay fadlan ciidan noo soo dira ambulance degdeg ah u baahanahay waa maasantiin maanta meesha maxaa ka dhacay intee ka fikiraayo weligii qof askari ma dilin laakiin maxaa danta igu kaliftay inaan dilo hadda kadib raggiisa dumar ha ahaado ha yaraado saxaweyne oo shahayga ninka soo hor istaago saan si ka daran ayaa ku dhici doonta بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaasheena sharafta badan halkani waa Guddoon TV oo xilligan oo kale aad nooga barateen wararka caalamka waxaa warka maanta diyaar u ah anigoo ah Boosford qodobada wararka ugu dalka weyn waxaa ka mid ah sarkaalad ka tirsan ciidanka dabagalka iyo dilbaarista ayaa ku geeriyootay Allah u naxariistay iyadoo ku guda jirta howlgal lagu soo qabanayay dilaagii dilka ka geysta xaafadda Udgoon iminkana kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan 4 ruux oo 3 ka mid ah yihiin arday ayaa lagu dilay xaafadda Udgoon halkay ardayad kale oo iyadoo dhaawacay taal isbitaalka weyn ee degmada kadib markay ka soo baxsatay dilaagii dilay 4 ruux kale oo ilaa iyo haatan heebtiisa la garan sarkaalad ka tirsan ciidanka dabagalka iyo dambi baarista ayaa ku geeriyootay Allah u naxariistay iyadoo ku guda jirta howlgal lagu soo qabanayay dilaagii dilka ka geysta xaafadda Udgoon sida uu warka noogu soo diray wariyaheena Nuur Aadan Roble mahadsanid boss lady xalay ayaa waxaa la sheegayaa ciidanka dabagalka iyo dambi baarista in ay ka howlgaleen goob lagu tuhminayay ruuxii dilka u geystay ardayda iyo dadka kale balse warka ayaa wuxuu sheegayaa sarkaalad ka tirsan ciidanka dabagalka iyo dambi baarista inay ku geeriyootay halkaas sida uu noo xaqiijiyay taliyaha ciidanka dabagalka iyo dambi baarista General Qaasim Nuur Magambade oo la hadlayay warbaahinta hadaladiisana waxaa ka mid ahay waa mahadsantahay howlgalkan marba waxaan jecelnahay inaan soo geliyo sababtu wax kale ma ahan marka hore waxaan la'een meel ay wax aadeen balse haddeer waxaan hubnaa xaaladda meesha ay ka socoto aad ayaan ugu xumahay Allah u naxariisto askariyada ama sarkaalada qaaliga ah ee Faiza ee meeshaasi ay nooga tagtay balse waxaan ku tilmaami karaa inay tahay ardayad geesiya waxtar leh oo weliba aan dhihi karo waa ardayad nolosheeda iyo nafteeda u hurtay bulshadeeda iyo dadkii iyada shalitooda ay u istaagtay oo ay ballan qaaday inay difaaci doonto waxaana dhihi doonaa waxay noqon doontaa askariyad la xasuusan doono oo qaranka weligiis uusan ilaahi doonin haddana waxaan aad ugu faraxsannahay in aan si aad iyo aad u helnay meeshii aan ka filaynay in aan ka soo qaadno amaba aan ku qabanno ninka geysanayay dhibaatadan oo dhan oo isku qarinayay taas waxay idin tusaysaa haddaad tihiin bulshadii iyo dadkiinaan wararka u gudbiya bulshada in haddii boolisku ay hayaan shaqo wanaagsan oo ah shaqadii looga baahnayo mar dhowna arrintan waa soo gudbin doonaa okay taliya mahadsanid waa ku mahadsantahay warbixintan Nuur Aadan Roble Udgoon TV mahadsanid daawadayaal intaasi waxaa nooga dhan wararkii caalamka oo nila socodsiinaya anigoo ah boss lady tan iyo intaan dib ugu kulmayno warkaan warka xiga sidaas iyo nabadgelyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
run ahaantii dhimashada hal bilaa ka soo wareegatay waana ku xiisay waana ka shalayn doonaa intaan dunida ku noolaa korkeeda habeenkaasna inaan kaa taga ma ahayn balse balan waxaa kaaga qaadaya ninka adiga sidan kuu gal inaan soo qabto hal bilaa ka soo wareegtay intaanan wax dilin anigoo wax dilina ma neefsan karo balse caaw inaan qof dili waayo wax kastoo dhaca alla laakiin waddooyinka askar ayaa buuxisay anigana qorshahayga inaan wax ka bedelo waayo balse waa inaan dhaqankayga wejigayga iyo dharkayga caadiga aan wax ku ugaarsadaa هلا كفر سكسك هالمرة يا رجل سمعي يقول قادم يا ماشي عاوي جوكا والله شو قال لك سافر والله صار أوه ها فرصة waa ka xumay wixii walaalka ku dhacay أنت سوق قف كستي ده كحما به ولا كأبو دعوات حتى لو حارة أنا سوق من الدلائل ولكن يدرينا من السوق marka inta maxaa u imaatay aniga ma ku caawin karin أنت وحن أوجع هالك قف ويعاون كرينا أبيته أنت لو حاول ما ذي إنا يعالج see ku caawiya marka وحارة إنا إيش تهرينك أقول إذا جمع هذه سنة وقف أهله habeenkaas horta 3 qof ayaa ahayn aniga Yaasiin Maxamed adigoo ku jira Yaasiin oo dhintay balse Maxamed aawi maalintaas ilaa hadda ma arkin iskuulkana ma imaan astaalkana ma imaan hadana kaligiis ayuu tagayay arintaas waa arinta keentay inaan Maxamed ka shaqeeyo haddii saas tahay booliska ma u sheegna marka maya arintan booliska ma gaarsiinayo arintan waxaa rabaa inay adiga inaas caawino aan dilaaga walaalkayga dilna aan soo qabto kaa codsanaya haddii aa xasuusata habeenkii meeshu dib u afdhowara ayaa igeysa waa kaas ninka soo mujadi qofka lu soo dil dhiig iska tirtiro ah
مايا سامعني ما نسعت شرعي إنك تحب البيس هاي مين لو انت عندي الجوري صاحبها على واسكريد وكنا ولا تسوقها اسمها لا تسوق كله ساعة كله orang Faisal kalau menggunakan wajib Faisal. Sana waktu yang kasih sama musuh Anissa. السلام عليكم ترى. وعليكم السلام ورحمة الله. ما توعية كم حجرة. أنا رأينا كلام لا أبي سنة. عبتين قوة. عبتين قوة سوق الدولة. waxaana kugu yeeray waan ogahay in uu trainingkaaga soo dhamaaday soo sax maadaama trainingkaada uu soo dhamaaday ma rabo inaad noqotid boolis caadi ah waxaan rabaa inaad noqotid qof si hoose u shaqeeya oona boolis ah aan la dareemin sidaas awgeed waxaa samayn doonaa haddii ilaa yidhaahdo waxaan kuu diri doonaa arrin waxaa jirta iskuul xaafadda ku yaala oo dhalinyar fara badan la la'yahay meel jaani cirib ay dhigeen waxaana ka baqaynaa ama aan u malaynaynaa qofka dhalinyaradaas maqan meeshaas ka qaadaya inuu iskuulka dhigto amaba iskuulka uu garanayo marka waxaan rabaa inaan iskuulkaas aan kuu diro oo aad iskuulkaas tagto aad ka mid noqoto ardayda meesha wax ka baranaysa aan lagaa dareemin ilaa aad ku hubiso yaa falkaas sameynaya si fiican ay fahamtaan maleynahay marka waxaan rabaa inaan tan waa qeyb ka mid ah xaaladaha iyo information ka mid ah oo aad ka tixraacdid iskuulka markaad bilowdid maadooyinka aad dhigan lahayd si xidhiidh aad u qaldamin maanta wixii ka dambeeyana magacaaga waa ku ahaan doonaa hadda meesha waxaa ku qoran waa inaad bedeshaa magacaaga caadiga ah ma doonayo askari xitaa hadduu ku arko inuu ku dareemo inaad askari tahay waa inaad askari tahay ruux shacab caadi ID-gaagana waa kaa iskuulkaad ku dhigan lahayd haddoo lagaa dareemin hawshaas inaad qabataan rajeynaya insha allah howlgalo cabitaanka ilamayso كافي هوشة سكرت وأنا حقوقي لأن هوشة سكرت. وحنا بينا كوي ديو حالا كنت شيء منكم حالا بينا صونو قاعد يجوز سكرت. واستفاع عن التليفون سكرت الإنترنت. الله. هذا ما أسمع. أبيه بس لكن يقول لي أسكرت. ما أنت قاعد أسكرت نوع عصير الشقية وأنا فهمت عنه.